dadka qabiilka Zaraniiq ee ku nool xeebta galbeed ee Yemen ayaa waxa ay leeyihiin dhaqan gaar ku ah waxa ay ka dulboodaan 3 ama 4 tulud oo la isugu xijiyay sida qolada darada Felis ay kaga dulboodaan gawaarida wuxuu ka noqday mid caan ah oo dhiirigelin iyo adkeysi laga barto gudaha dalka Yemen xubnaha ka tirsan qabiilka Zaraniiq waa kuwii ugu horeeyay ee laga soo gaaray ciyaartan qaadashada dhowr talaabood oo orod ah oo loogu diyaar garoobayo in laga dulboodo dhowr tulud ah ka hor inta aan dhinaca kale dhulka looga dhicin ayaa si kooban looga bartaa ciyaartan inta lagu guda jiro ciyaarta midka ka dulbooda tirada ugu badan ee geela la isugu tixay ayaa noqda guuleystaha tani waa waxa aynu sameeyno ayuu yiri Baydar Maxamed Yuusuf Qubaysi oo ka mid ah guuleystayaasha ciyaartan kana soo jeeda Tihaama al-Yemen asalka ciyaartan waxa dib loogu celiyaa waqtiyadii hore hayeeshee dhaqankani wuxuu gabi ahaantiisaba noqday mid la iska hilmaamay ilaa iyo dhawaantan markii qabiilka Zaraniiq ay dib u bilaabeen in ay dhaqan galiyaan waxa caadiyan lagu soo beegaa xilliyada aroosyada xafladaha kale ee dhaqamada iyo xitaa mararka qaar maalmaha farxadda leh ee muslimiinta gobolka Tihaama oo ay ku nool yihiin qabiilka Zaraniiq waa mid ka mid ah meelaha ugu saboolnimada badan dalka Yemen oo ah dalalka ugu faqriga badan dunida Carabta Soomaalidu waxay ugu yaraan ka baran kartaa way aragnimo dhaqanka ka jira dalka Yemen iyada oo xitaa laga yaabo inay dhaqan gelin karto maadaama ay hanti in ku filan ka haysato geela from the villages.